asalaamu calaykum. soomaaliya waa dallaca bariga afrika ee aagga loo yaqaano geeska afrika. waxa ay xad wadaag ka yihiin yemen dhanka gacanka cadmeed. waxaa sidoo kale bari ka xigta badweynta hindiya. dhanka galbeedna waxaa ka xiga etoobiya iyo jabuuti. koonfur galbeedna waxaa ka xigta dowladda kenya. soomaaliya waa waddanka ugu fog ee bariga qaaradda afrika. badka dhulka soomaaliya wuxuu ku fadhiyaa qiyaastii 637,657 kilomitir oo laba jibaaran. waxay soomaali leedahay xuduud bari ah oo aad u dheer, dhererkeedu gaaraya 2,340 kilomitir ee kalbarta dhammaan. jabuuti masaafadan 58 kilomitir. etoobiya masaafadan 1,600 oo kilomitir iyo kenya masaafadan 682 kilomitir. sidaa daraaddeed soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee guud ahaan qaaradda afrika, iyadoo gaaraysa xeebta soomaaliya dhererkeedu 3,330 kilomitir. dhulbadeedka soomaaliya wuxuu gaarayaa ilaa 200 oo mayl badka gudaha badweynta hindiya. dhulka soomaaliya waa dhul saxaro xigeen ah, waana dhul aad u siman marka laga reebo dooxooyinka webiyada shabeelle iyo juba ee buuraleyda iyo buuraleyda goolis ee taxan xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi bari. taasi waxay sahal ka dhigaysaa in reer guuraagu ay si sahlan ugu safri karaan xilliga barwaaqada, iyadoo ay ka baxaan dhir aad u kala gedisan oo ku habboon daaqa xoolaha. dhanka waqooyiga ee ku xeeran gacanka cadan waxaa ku yaala dhulka loo yaqaano guban, dhulkaas oo bilicsami ku siyaadinaya berbera iyo buraha goolis. ceergaabo agteeda waxaa ku yaala buurta ugu dheer soomaaliya oo lagu magacaabo surat, dhererkeeduna gaaraya qiyaastii 7,900 oo fiit ama 2,408 mitir. buurta labaad ee soomaaliya ugu dheerna waa buurta baxaya, waxayna ku taalaa meel u dhow boosaaso. dhanka koonfurta waxaa ku yaala laba webi ee juba iyo shabeelle. waxay labaduba kasoo bilaabmaan buuraha etoobiya. juba wuxuu biyaha kaga daraa badweynta hindiya meel u dhow kismaayo ee loo yaqaano goob weyn. shabeelle wuxuu ku dhammaadaa meel dhexe inta uusan badda gaarin. juba ayaa ka biyo badan shabeelle. dhulka labada webi ee ku xeeran ee aadka u quruxda badan waxaa ka mid ah magaalooyinka afgooye, balcad, jowhar iyo magaalooyin aad u badan. markaad timaadid dhanka baydhabo waa dhul ka samaysan dhagaxa loo yaqaano granite. xeebta u dhaxaysa kismaayo iyo hobyo oo dhererkeedu yahay 1,000 kilomitir waa dhul bacaad ah, taasi oo ku tusinaysa bilicsimada dhulka soomaaliya marka aad ka soo eegtid dhanka badda. dhulka kale ee hooseeya ee soomaaliya waxaa ka mid ah dooxada dharoor iyo dooxada nugaal oo ku yaala waqooyi bari. labaduba waa dhul waadi ah, waxayna biyaha ku daraan badweynta hindiya. dharoor wuxuu badda kaga daraa magaalada xaafuun, nugaalna waxay kaga dartaa eyl.